waxay ahayd 20 sano ka hor nolol adag ayay ku noolaayeen waxaa loo geystay baabka qoyskooda si kastaba ha ahaatee qoyskaas nolosha adag ku noolaa ee haddana la baabi'iyey carruurtooda waxaa laga iloobay in la raacsiiyo daadka wiilkoodii yaraa ee daadir ayaa noqon doona sababta qofkii u geystay faamilkiisa dhibaatada oo ah ninka magaalada xukuma ee Cabbaas. si kastoo u raadiyay daadir iyo qof kastoo u maro siduu u heli lahaa qofkii waalidkiisa dhibaatada u geystay ugu dambayn waxa uu la kulmay gacanyaraha ninkii waalidkiisa dhibaatada u geystay ee KK kaasoo ah dilaa kale. هاي كابل mudanaha oo kaliya ayaan u baahanahay وحول بانيga inta ayaa iga xiraaca midaasna adiga ogow kulli ayaa aniga yaacada sidoo bacdowgii nolol uma tago taas ayaa ugu soo sodhow waa ku sugay aqla ayaad leedahay hadaba dhimashadaada ka sheekeynayso dhaqanyo adiga malagayga soo raasay maxaa yeelay qoyskayga dhan aniga yeelay adiga kaliya ayaa yaaray nasiib wanaag lugaada ayaad igu timid sida indhaha ka muuqato waad qalqalsantahay cabsina way kugu jirtaa taasina waxay marqaati u tahay inaad tahay marxuum
sida sagaare libaax baahan hortaagan oo kale. may tiri oo sidaas dhan ma soo kalsoon tahay waxa aan ku dareensiinayaa xanuun ka badan kii qoyskayga marka aad leenaysay ay dareemeen. هاي طول هوش اسيوده عنده سواقه برضه كل ده ستوريا كروفو